الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ومركل iyo barnaamijkeennii soo koobida iyo gorfeynta buugaagta xokrarsi waxaynu maanta faaleyn doonaa buugga la yiraahdo 15 infallible law of growth 15 xeer ee koritaanka ama kobaca buugga waxa soo saaray qoraa John Calvin Maxwell waa qoraa iyo turjumaa fagaara ka hadal dhiirigeliye inta ugu badan wax ka qora arrimaha la xiriira hogaaminta iyo koritaanka iyo guud ahaan dhiirigelinta waa dhiirigeliye buugaag kala duwan qoray buugta qoray waxaan ka xusi karnaa buugga la yiraahdo 21 indispensable quality of leader koobiyo tobanka sifo ay leeyihiin hogaamiyayaashu qoraagu buugaag kala duwan oo kalena uu qoray waxa kale kamid ah buugga la yiraahdo Everyone Communicate Few Connect oo soo saaray sanadkii 2010 sidoo kale wuxuu qoray buugga la yiraahdo 21 Irrefutable Law of Leadership oo soo saaray sanadkii 1998 qoraagu waa qoraaweyn buug kale oo aan ku wanahaynaa uu soo saaray wuxuu qoray sanadkii 2012 wuxuu kaga warramayaa si guud hadaynu mawduuca eegno koritaanka ay bini'aadamku sameeyaan waliba koritaanka ah wacyiga iyo aqoonta iyo soo araga iyo fikirka bini'aadanka iyo qaabka ay yihiin ayuu markaas si fiican uga warramayaa waxaan isku dayayaa markaa bal si kooban inaan dhowr qodob u tilmaamo 15 qodob qaar kamid ah qodobka koowaad qoraagu wuxuu leeyahay xeerka ku talagalka law of intention xeerka ku talagalka waxa uu ka wadaa bini'aadamku marxalado kala duwan ayuu maraa marxaladaha kala duwan inta ugu badan waxay ku dhacaan qorshe iyo ugu talagal way yartahay qofka wax kama ama si ku talagal la'aana ugu dhaca kama hadlayno qadarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qadaro qadarku waa gaar Ilaahay doonis iyo mataqaanay wuxuunisi waxaynu wax ku dooni karno waxna ku diidi karno waxna aynu ku qorsheyn karno insi marka taasaynu ku hadalnaa laakiin qadarka ma jeedno marka ma jiro shay iska dhaca bini'aadamku wuxuu leeyahay gaabis ama fakaag baa jira u dhaxeeya qofka aqoonta uu leeyahay iyo tawdoonayo inuu gaaro fakaag baa u dhaxeeya qofka halka uu joogo iyo halka uu doonayo inuu gaaro fakaag baa u dhaxeeya marka gaabiska kala duwan qofku sidoo uu buuxin lahaa waxa u baahan yahay ku talagal qofku inuu ku talagalo oo waxan u kasaamo ku talagalo sameeyo marka qoraagu wuxuu leeyahay xeerka qofku inuu yeesho xeerka ku talagalku waa mid muhiim ah isageena marka anfacaysa xeerka labaad xeerka ka warqabida laga warqabaya waxa laga warqabaya qofku koritaanka uu sameeyo waxyaabaha uu baranayo shaqada uu qabanayo halka uu tagayo dhaqaalaha uu helayo halka ay ku baxayaan yani qofku inuu ka warqabo waa xeerka ka warqabka xeerka saddexaad waxa weeyaan waa xeerka dib u qiimeynta iyo milicsiga nafta in nafta dib loo eego mararka qaar sida ay tahay iyo waxyaabaha ay yani sameynayso in dib loo eego oo dib loo qiimeeyaa waa law of reflection waa muhiim in qofkii shaandhadiisa saaro oo naftiisa eega waa mid muhiim ah xeerka afraad waa xeerka joogteynta loo yaqaan xeerkani wuxuu muhiim u yahay qofka hawsha uu qabanayo shaqada uu hayo inuu day by day maalinba maalinta ku xigta bilba bisha ku xigta sanadba sanad ku xiga yani kolba qofku uga sii dhawaado oo u qabto kolba heer isagoo markaa gaadhaya xeerka shanaad waa xeerka deegaanka bini'aadamku wuxuu u baahan yahay meel iyo deegaan uu ku noolaado deegaankaasi oo ka dhacayo koritaanku marka waxa muhiim ah goob inuu qofku yeesho ama deegaan uu helo waaya xeerka lixaad waa xeerka qaabaynta ama mataqaanay qofku inuu waxaan qorsheeyo oo mataqaanay shaygan oo yahnaan isugu doonayo oo dhigo xeerka ku xiga waa xeerka loo yaqaan xeerka xanuunka wuxuu ka wadaa qoraagu waxa jirta qofku waxyaabo kala duwan oo nolosha soo maraya wax soo maraya barwaaqo
wax soo maraya dhibaato waxba kala duwan soo maraya marka waxa muhiim ah qofku inuu ku talagalo shayada imanaya xanuunka badan shayada imanaya ee uu dul qaadan karin inuu dushoodii iyo wixii ku qaabin lahaa uu yeesho xeerka ku xiga waa xeerka fadulnimo curiosity baa la yiraahdaa English marka la sheego curiosity carabtuna bala Englishka waxa la curiosity kills a cat fadulnimadu bisad bidish fadulnimadu waxa weeyaan qofku inuu isku dayo inuu qof noqdo bulshada dhex gala qof doonaya bulshada noocyada kala duwan cidii ay wax ka galaan qof la shaqeysan kara qof wax la qabsan kara qof dadka ay isfahmayaan qof dabeecad furfuran yani qof faduuliyo oo dantiisa iyo danida dadka kale kolba isku fuuliyeelayo oo danihiisa markaas ka dhex akhrisanaya in noqdo waa mid iyadna muhiima xeerka ku xiga waa xeerka hay'adda waxa jirta qofku waxyaabo kala duwan oo u baahan yahay inuu qabto ama inuu sameeyo cidda wuxuu u baahan yahay marka cid la taliso mentor ama hagid iyo talo iyo tusaale ka siisa ayuu marka u baahan xeerkaas inuu muhiim xeerka ku xiga waa xeerka loo yaqaan xeerka qaaraanka qof bulsho ku dhex nool yahay waxyaabo kala duwan baa imanaya waxyaabaha imanaya qofku inuu qaybtiisa ka qaato isku dayo inuu wuxuu ku darsado haba yaraatee iyadoo waa mid muhiim ah tobanka xeer ayaan jecelahay inaan buuga ka xuso waxaan jeclaan lahaa buuga in la akhriyo intaan buug kan la mid ah ku kulmi doono waxaad ka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabtiina la sii wadaaga